Roobab mahiigaan ah ayaa waxay ka da'ayaan deegaanka Soomaalida. Roobabkan oo ah kuwii guga oo ka curtay deegaanka Soomaalida ayaa waxay yihiin kuwa soo rogay daad aad u fara badan, waxayna inta badan roobabkani ay ka da'ayaan gobollada Qorraxay, Jarar, Faafan iyo weliba gobolka Doolo. Inkastoo roobabkan ay ku kala badan yihiin meelaha ay ka da'ayaan, haddana waxaa ka siman yihiin masaafad dheer oo ay roobabkani markaasi ka da'ayaan. Roobabkan da'aya oo haddaba kuwo maalin iyo habeenba da'aya ayaa waxay yihiin kuwa jabiyey biyo la'aantii ka jirtay goobo badan oo ka mid ah deegaanka Soomaalida. Waxa ayna farxad geliyeen dadka xoolo dhaqatada ah, kuwaas oo ka furtay aroorkii dheera iyo weliba oonkii haystay. Waxa ayna nolosha dadku noqotay mid wax iska beddeleen. Haddaba roobabkan ayaa ah kuwa raxmadda Eebbe ee markaasi ay dadku ay sugayeen, iyadoo waqtiganna la odhan karo waxaa si rasmi ah u bilaabmay roobabkii guga oo ay dadku ay sugayeen. Cali Ayaanle, Home Cable TV, Jigjiga.